أصحابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta maxaa karinayaa soor saa u jeediin. inta maxaa iigu jiro shime kuugu dambeysaa baay halooley u jeediin caloosha eriga iyo hilib aan isku daro waa shiilayaa. intana galeecada igu jirto jaalle ma ahan, galeedan tan waay tanaan shiiday makiinadaana haystaa. tan dhanaan shiiday waa ku shubay, wax kale kuma darin. halahanaa shiiday waa ku shubay, cusbo leen ku daray. hadda leen ku shubay waa huurina adeegay noqonaysaa. laakiin soorta markii la karinaayana way ka duwan tahay. marka adiga aad shiidatid way adag tahay, waa weynay noqone. laakiin tan suuqa taalo biyaha ka yarayna hal maraa ku shubaysaa, cusbadaa ku daraysa, saliid saytuun yaraa ku daraysaa, hal maraa walaaqay dabkaa ka gaabine waa dabooleysaa. tan laakiin waxa waaye anaa shiiday, waa ka waaweynay noqonay xoogaa yar. so waxay u baahan tahay inay cabaar ay karto, maadaama aan makiinad weyn lagu shiidin oo makiinadan yar lagu shiiday. makiinadan aad uma jijibinayso, wax yar waaweynay ka dhigaysaa. so galeeda marka aad shiidatidna way ka macdahay tan kaleetood. galeeda kaloo suuqa taaloo shiidan way ka macdahay. tankaana leelaya hadeertaan toon iyo basal iyo waxaan ku darayaa insha allah kabsar caleen. waa lasii shiilayaa, markay gaduudata waxaa lagu darayaa baradho iyo wixii kale qudrad loogu talagalaa lagu shubayaa insha allah. yaanyo yaraa lagu daraa, yaanyo badan ma jeclin, gaduudka wax yaraa ku darayna insha allah. tanne adeeg waayo, daboolkiisa la saaraa hadeer saasoo adkaanaya. markuu saadana dadkaa laga gaabinaya insha allah. number 6 uu joogaa, waxaa la geynayaa labo soortaas. yadan waxaa lagu darayaa waxyaalihii loogu talagalay dhan hadeertaa markasaan loo shiilo. hadda waa ujeediin yaanyaan ku daray, haddana waxaa ku darayaa kabsar caleen, haddana waxaa ku soo darayaa duum oo ku darayaa haddana. waxaa ku daraya asxaabe basal iyo basbaas cagaar. basbaaskani basasha maxaa la dhahaa, ani basal badan jecelahay. basbaaskan aad u kululo qaboob waaye. waxaa kaloo ku darayaan filfil wax yar darayaa. horen waxaa ugu daraa milix laymoon si uu u baabi'iyo calooleyda shiirkeeda oona dhaqsana u bislaayo. milix laymoonaa ku daray, wax yar basbaas xabashiyaan kusoo darayaa haddana. waxaan caleen waaye, caleentan iyadana waxay baabi'isaa shiirka. bariiska ku karsan kartaa, wax kastoo maraqa karinaysa oo ku dari kartaa. warqa qaaraa la dhahaa, waxay baabi'inaysaa shiirka mise hadda calooleyda mise wax kastoo aa karinaysa mise digaaga. bariiskana waa lagu kariyaa. waxaan kaloo ku darayaa insha allah maajigan waan ku darayaa. noocan aad uma dhanaano. waxaan kaloo ku darayaa xawaashkan
kuwa kiriida halkaanaan ku daraayo waa 7 nooc oo xawaasha oo la isku daray wax yaraan ku darsanaa insha allah. xawaashkan heelaa ku jiro, qarsaa ku jiro, filfilaa ku jirto, waxyaabo badan oo isku darsan waaye. noocan waxaa waaye wuxuu yaalaa wiliska isagoo kasaan oo kale dood ah. wiliskana wuu yaalaa kan laakiin carabta waaye. hadda waa ujeedin carabiga ku qoran 7 buhaaraat ku qoran 7 buhaaraat. kuwi kiriidaarna waa ku qoran tahay Swedish so wiliskana wuu yaalaa dukaamada carabtana wuu yaalaa. aad ugu fiican yahay bariiska waliba. ani waxaan ku darsanayaa maraqa aan karinayo cadiskan mise misirtan guduudan wax yar, wax badan ma aha. because waxaan rabaa maraqa inuu maraq adag noqdo. midda kaleetoodna faa'iido laga helo. marka intaana dhaqaaya oo ku daraya insha allah. waa kana saana u dhaqay oo shubaya insha allah. wuxuu noqonayaa maraq adag oo aad iyo aad dhadhankiisa u fiican yahay oo macaan badan uu noqonayaa. wax yar basbaas xabashi aan ku daraya aan kuleelhayn aan haystaa iyo basashaan waxaan taagtaagan dhan maanta dhan markuu cabaar karo way ku baabi'aysaa insha allah. waxaan kaloo ku darayaa baradhadan haddana. waxaan kaloo ku darayaa basbaas xabashi kuleel badan maaha. aad ugu filan basbaaskan. waxaan kaloo ku darayaa kurkum steeled huruud waaye. wax yaraa lagu darayaa. hadda waa la biyeynayaa markaan. hadda waa biyeeyey, waa la daboolayaa ilaa uu biyahaas ka gursanayo inta badan. waxaan feedeynaa soortaan fureynaa oo halkaas waa ujeediin adeegay noqotay. dabka aad iyo aad u gaaban yahay. waxyar ka bacdiyaan haddana fiirineynaa insha allah. waa sii adkaane. sii adkaanaysaa insha allah. waa dabooleynaa iyadana ilaa foolku taalahay. waa sugeynaa. maxaa la yiri dhaqankiis ninkii ka tago nin dhinta leh waaye hadduu dhinto. waa ujeediin asxaabe soortii maasha allah tabaaraka allah raxmaan. markay si fiican u karto biyaha ka yaraadaan waa la gaabiyaa. lambar 2 geynaysaa mise lambar 3 dabkaaga adaa yaqaano. cuntada maaragta wadankeena inaa cuno way fiican tahay. soorta maalin la cuno soo faa'iido badanaa ku jirto inaa cuno soorta.
maraqina waa kana waa ujeedin waxyar ka bacdi isagana diyaar uu noqonayaa soorta diyaar waaye maraqana diyaar waaye waxyar ka bacdi waxaan rabaa misirta inay karto karis badan ma qaada laakiin ayadaas asxaabey soorta waa ka damiye waa ujeedin say u adag tahay waa arkoosiin say adeeg u tahay maasha allah maraqeeda waa kana waa damiye isagana waa la guray weelkaasaa lagu guray maasha allah tabaaraka allah raxmaan khatar waayaan ku dhahay lagama sheekeyn karo waxaan kaloo idiin hayaa sanjibiilkan xalaal waaye xalaalaha ku qoran sanjibiil kuleel leh waaye waa kulul yahay malabaa ku jiro saa ujeediin malab iyo sanjibiil waaye oo laisku soo sameeyey oo qalalan bacdaa waaye wadankaa ma yaalo ingiriiska laga keenaa ani maamo dariskeyga ahaa siisay oo kasoo qaatay qeyb waa kana kan laba maraa cabeysaa meesha shaaha ka cabi laheeda mise qaxwada kanaa cabeysaa kan laba maraa qasan kartaa laba kooba kuu noqonayaa sokor ma ku dareysid wuu wataa sokortiisa gabdhaha London jooga ama qofkii markaas kasoo baxay London wuu soo qaadi karaa laakiin aniga wadankan kuma arkin aad iyo aad u fiican yahay maasha allah tabaaraka allah raxmaan soorti iyo howsheedana saani iskugu dhamaatay maasha allah tabaaraka allah raxmaan maama xaliima ama shaqal kulli oo idin leh jika Soomaali maanta waxay ka soo saartay soor iyo maraq goormee idinkugu dambeysay xageesi idinkugu dambeysay ahlan wa sahlan fiikum والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلب وناكسن صاحب بيان